Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amaanay dhalinyaradii SYL iyo dadaalkoodii xornimo-doonka ahaa. Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo magacaabay Villa Soomaaliya agaasimo cusub. Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarkii lagu qaaday goobaha shidaalka ee Sacuudiga. Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in galmudug u taalo muddo kordhintii uu dalbaday xaaf. Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo u hambeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed. Soomaaliya midowga Afrika oo u kordhiyay muddadii AMISOM. Soomaaliya taliska booliiska oo sheegay inay gacanta ku dhigeen qofkii bannaanka keenay imtixaanka dugsiga sare. Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qaabilay wakiilka cusub UNICEF ee Soomaaliya. Arrimaha dibadda Turkiya iyo Ciraaq oo ku heshiiyey iskaashiga ciidanka. Arrimaha dibadda xogayaha qaramada midoobay oo ka digay qalgalgelinta ammaanka ee khaliijka. Arrimaha dibadda dagaalada Yemen oo sabab u noqday joojinta heshiiska hubka ee Sacuudi Arabiga. Arrimaha dibadda caalamka oo xusay sanad guuradii 11aad oo ka soo wareegtay musiibadii ku dhacday Falastiin.